السلام عليكم صاحبي kusoo dhawaada qaybta shanaad ee halgan kartaamo waxaad u socotay nafta durayaashii iyo naftuuriya raacadu kala dhaxkalay ilaa uu woodi waayo inuu saaxiibadu tago hada wuxuu gurur kadib waxaanu la xaqiijinayna kaalada xabadil ay saddexdii wiil nabad galeen laakiin ay kala fakadeen oo ila wiilkiina markuu soo rooway inuu xagga saaxiibadu kaco yaa wuxuu alla ku guulay inuu dhinac kala ka baxo iyo nabad laakiin aanu helaysan oo kaliya wiilashii kalena iyagoo nabad ay dhinac kala ka baxeen laakiin wiilkii yaraa markaa meel ay u doonaan ma jirto marka ayada waxaan dareemay farxad weyn oo waxaan mid wax ka bedelan ayuu arrin noqday inkastoo la yiraahdo mana farqo mana naxo xaqiiqan ay tahay haddana iska badnaa marka ayada saara wax kala yaraaday ayuu weekaaday laakiin war la'aan baan hayad qabsan doona haddaba isla reerka ayaa wuxuu sheegay cadawgu dad shacab ah oo 7 ilaa 8 qof gaadhay reeraha ka kaxaysteen kula tagteen meel u dhow gabaabe dadkaas dad jabadeedu badan ayuu ahaa dadka shacabka cadawga iska leeyahay waqtiga ayada waxa ka mid ah Allah u naxariistay naftuura xaashin nugur walaalkii iyo sidoo kale naftuura shaqa walaalkii iyo sidoo kale Allah u naxariistay naftuura Maxamed Xasan Tartar walaalkii marka ayada hadana murugo kale ayaa u dhacday oo ah shacabka masaakiinta birmageedada ee cadawga cadaystay inuu dhiigisa daadiyo ee la iska goobray iyagoo waxba garabsan adu intii fiidno meelay iska joogno qorshaan waxa weeye inaan naftuurayaasha raadino wiilka gaar ka bacay iyo labadii kalaba haweysama markay tahay baan ka soo daynay difaaca malqaaga agtiisa ayaan iska seexan aniga oo cadho hurayoola waxaan ka noolaanaa marbaad shacabkeeni sida loo gali naftuura shaaq nuur Allah naxariista ayaa ugu dhahay baylkayga ma qasiya anna waxaan ku iska daadun qoriga jajabin qasnintay ku jirtaa fara ninkiisa aan ku qarsoonahay ayuu ahaa ilaahay amarka barkii baa dhaxlay kala gooy xalun degdega baa igu soo boodi waagu markii noo bariya salaad subax tukanay meeshan ay tahay xarada cadawga dhaxdeeda oo ina meeshan meel ka badan dagaal ku qabsado yaanu yeedhay wiilashii waan la tashaday oo maxaan sameynaa meeshan iska gurnaamisi waan iska degananaayaan ku yiri laba wiil way la waqtigoodii dhamaad waxay dheen halkan iska deganaano cadawga agtiisa waxa uu malay uu ka dhagalayahay wiilkii wuxuu yiri meeshan laafiya ariguna labadii wiil ayaan ku raacay fikirkoodii oo taladoodii mobayl qumanaatay ilaa meesha ilaahay wax koodo dameera weeyda ka dhalay wili waxaan ku dhahay iska deganaanaynaa reer kreeteedana orgikeena ku jira ayaan qalanhaynaa hawshu markii halka mari waxa agtaanada saddex reer laba naftuura reer baan u diray naftuura kalena reer baan u diray ana reer baan u kacay saddex reerna way isu muuqdaan waaba isu daba jeedis waxaan ku soo baxay islaana hore isu naqaanay waxay u jireen war meeshka carar wadadan cadow kama faaruqo oo maalin kasta uu nagu maraay waxaan ku yiri kaba xarrayno qoriga wata ana qoriban wata waxay u tiraa cadow boqol iyo qandaqadan ay soo socdaa idinku laba ruux ay sadar ayaa tiin iska carar meesha waxaan ku yiri si kasta uu badan yahay nama xabsi galiyo laakiin waan dhiman karnaa waxay ku tiraa aan shuur tool xumida haddana nin dheer baa tahay ninka dheer dadka uu ka hor qooxinay yaa meesha ka carar ku dhah kafsan dheer kadib waxa reerku yimaado saddexdii wiil ee labana meel u diray midna meel u diray reerkii baan ka soo baxnay markaan reerka soo baxnay yaa lamadii wiil ayaa reer ku yiri reerka ku noqdo oo gisteena soo qaada marka waxa ay qorshaysay inaan garaan yar ama harir reer korkiisa inaan maanta iska degno marka aniga Sheekh Nuur ayaa nahay laakiin aniga ayaa ka cagaray waxaan arkay nin dharaad oo halka horteeda geed isku liidiyay oo iska qeeqariyay dib waxay soo gaar Sheekh Nuur laakiin waxa maan sheegin dhul isu liiday ayaan soo qaabilay si aan u arko ninkiis qadii waan arki waayay ilaa uu istooray oo dhulka ayuu seexday waxaan markaa gacanta ku luminaya caagad caana ku wadan waxaan ku yiri nin baalka ka kacay oo haddana geedka isku qariyay inuu cadow yahay ruux reerka ka hada soo baxaya garan maayo markaan intaa yidhi Sheekh Nuur baa wuxuu isku daray qorigu soo rugto iyo 5 talaabo dhanka bidixgana sinaan qaad iyo inuu dhaho war Allah ku barne maana roonin xagga geedkii oo ninku iska qariyay oo maanu socdaa qorigana degtaan ku wataa waxaana igu jirta sidii koox xabo rasaasa oo mid baa dhuunta igu jirta gacanta kalena caagadan ku laalminaya sheekada afweene Sheekh Nuur ayaa wuxuu isku daray istuuritaan Allah ana si degdeg ayaan soo daray caagadii on dhigo iyo geed qurac isku soo toosay iyo qorigan soo roogtay iyo durbo inuu wato rasaas falaadana ilaan xira ayaan ku jirnaa oo qoriyaha afkoodii ayaan taaganahay misna dhirtiya way galgalaad dhamacda lagu beegsanahay aniga ridaan sidwaatan iga dhigtay degdeg baan uga soo turay oo waan ku riday bidix baan dhowray waxaan arkay naftuur Sheekh Nuur oo geelami sidii geesi lagu yaqaan dib baan dhowray haddana waxaan arkay labadii wiil yaryar oo meel ka sii baxaya ilaa markii lagu bilaawtayba dib u baxay halkan ayaan anagu iska daysanay isla markii waxaan arkay labadii wiil yaryar midkood waa naftuur kala ruureeriye oo meel naga dambaysa xaq reer naga ka dagaalamaya ilaa intuu soo noqday intuu soo gaadhay yaa waxa arkay qolada dhabarjimina diinta kaliya ayaa ku hortagay isla waxay kadib waxaan arkay naftuur yar oo qolada dhabarjiminta la kacay oo kaliya xataa reerka dhaafiyay naftuur Sheekh Nuur baan ku yiri waan kaaga riday dubbax oo banaanka inaga dambeeyay oo markaa ana iga soo rid sidii buu yaal oo iga soo riday
أنا dib baan u soo baxay oo meel 10 talaabo jirta saaxiibkay ayaan jilibka dhigay hadalka kala fogeyna haddana dib baan dhowray waxaan arkay naftuuri yaraa oo ay dileen oo inta qoriga ka qaateen ay beel ka faranayaan haddana qorigaygii ma fiiri waxaan arkay xabadii oo dhamaad u dhow ama kala badhnay naftuuri Sheekh Nuur baan ku yidhi qasnadiisa tuur oo ka hortay qolada dhabartinta ee wiilka dishay qasnadii intuu beel ka soo saaray u tuurtay isiri ayay gacanta kaga dhacday isna gacantiiba dhulka ay ku dhacday oo way jabisay haddana bawdiyada ay kaga dhacday laakiin markaa bawdiyada way jiidaysay oo ma aysan jabin qasnadii ayuu gacanta kale ku qaatay wuxuuna gashaday qasnadii jeebka intuu gacantii jabnayd soo qabtay ayuu farteeda qaniinay si aynu u dhicin qoriga uu dul saartay gacantii jabnayd oo farteeda qaniinsan yahay ayuu qoriga dul saartay sida tiyo tareergeeda uuna sii kacay qoladii dhabartinta ayuu goortagay isagiyo gacantii fiibayd ku riday anna halkaygii ayaan u daayay waxa badana waan tashiilanayaa isla markiiba haddana waxaan arkay Sheekh Nuur oo la dilay oo waxay ku tarnayd anoo dhowr marka baylkayga ka furanayeen haddana siidhagayga dhungeelaha ay ku soo afuufayaan xaggii xaggan dhowray isna dhan kasta waxay iga soo dhacaysa xabad eersi ma haysta aan la kahayn saaxiibadayna way go'an xabadiina way iga sii dhammaanaysaa markaa waan soo kacay oo waxaan ka horeeyay qoladii wiilasha lays anoo kuwii ku jeeda ayay qoladii aan kolkii hor fadhiyay xagga dambe iga timid deedna durba hal degdeg ah ayaa giirkayga xarooday wayna dhex fadhiisatay maxaa eegi doona waynu qaybtii lixaad saaxiibayaal hadduu alla awoodo loo kalaabo idinkuna muuqaalada shaar gareeya insha Allah oo koobiyoonkiga inoo taabto